tan iyo intii uu dalkani Kenya uu xorriyada ka qaatay guumeystii Ingiriiska ayaa gobolkani waqooyi bari ka liidatay dhanka waxbarashada taasi oo sababtay in dhanka horumarka uu aad u hooseeyo gobolka waqooyi bari Kenya. xildhibaanka koonfurta Wajeer Maxamuud Omar ayaa socdaal ku tagay qaybo kamid ah deegaanada laga soo doortay si uu u kurgaro baahida mise dhibaatooyinka ay la dala dhacayaan shacabka koonfurta Wajeer. Dr. Omar ayaa booqday iskuulka Oldham Primary halkaasoo ardayda ay haysanin fasalo ku filan iyo waliba kuraasa. maamulaha iskuulkani oo geed hoostiisa xafiis u ah ayaa naga warbixiyay xaaladda dugsigani. San Maal Cabdi baa lidhaha marka aniga baa iskuulkan maamulaha iskuulkan ahay. waxaa jirta iskuulkan in la bilaabay 2011 dib fara badan buu soo maray iskuulka enrollment-ka waa 250 oo canug wax dhisma oo hadda ka hor loo dhisay malaha 4 class kali waay 4 class loo dhisay labadan hadda oo Dr. Omar uu noo dhisay ayaa inta laba kaliya ka dhisneed iskuulka oo 6 class ah 2 class kaliya ka dhisneed marka waxaa jirta iskuulka akhriska inuu soo wanaagsan u soconaynin sababtoo ah ilmihi meel fiican oo fariistaan ma qabaan desks ma qabaan macallimiinta taa way ku yar yihiin marka aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta maadaama uu noo imaaday mudanaha Dr. Omar oo 2 class hadda noo dhisay oonan ka filayno inuu oo naga ballan qaaday inuu galaas dhisi doono oo dheesas u keen doono marka aad iyo aad baan u faraxsanahay. Dr. Omar ayaa ku tilmaamay inay tahay arrin murugo leh isagoo sheegay inuu garab siin doono halka uu baaq u jeeday odayaasha tuulooyinka cusub asaasana. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan imaanay Diif Oldham Primary School runtii farxadda iyada oo ah waalid iyo caruur heegan u ah inay wax bartaan waalidkina uu u talagalay inay caruurtoodii wax u bartaan ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. taa waa qodobka labaad waxaa murugada aad iyo aad u balaaran ah inay caruurtanadii ay fasal iyo ama guri ama school meel ay ku dhistaan wax ku bartaan ay la yihiin taa iyada muruga aad iyo aad u weyn way u balaaran waanu soo dhaxmarnay waan aragnay ilmaha oo dhulka fadhiyo oo runtii aan ka naxnay inay caruurta ayaga ay dhulka fariistaan oo kuraas aanay helin dheesaskana ay helin taa iyada aad baan uga xunahay runtii maana ay dhacdeen madaxnimo xumi dadaal xumi ka timid xagga dadka madaxda u ahaa oo gobolka laga soo doortay ayaan u arkay aad baan uga murugooday aniga 2 fasal baan u dhisay 2 darsi baan oo 2 qol baan u dhisay waxaan doonayaa inaan ugu daro 4 qol oo kale sanadkan hadda nahayo dhaxdiisa intaanan dhamaysan yaanu doonaynaa insha Allah taala waanan dhamaystiraynaa iskoolkan inta class u baahan yahay sidaad arkaysaan hadda meeshan fadhino waxa weeye geed hoosti ninka maamulaha dugsigan ka ah geedka hoosti ayuu wax ku maamulaa bugaagtiisa dabeesha ka qaada runtii oraxda uu fadhiya kuleelka iyo dabka uu dhax fadhiya taa iyada ana aad iyo aad baan uga xunahay una fool xuntahay marka sidaa darteed aad baan uga yacnaha danqanaya in ay caruur iyo arday iyo macallimiintiba ay sidan xaaladooda howlaal ay tahay marka insha Allah dadaal baan ka geli doonaa.